oo dalka Uganda sax horyaalka magaceedu ku ciyaarayay horyaalka marka gobol geeraar leeyahay horseed guusha ku raacday haye horta berigaas tiri waa fahmay aad uma xasuusto laakiin ana berigaas tiri waa xasuustaa waa fahmay aabahay waa xasuusta ardayan ahaay waa bari abo raadiyo muqdisho marka barnaamijka bandhiga raadiyaha iyo barnaamijka ciyaaraha kaliya waxyaabaha noocaas oo kale lagu soo qaadan jiray waa xasuustaa Cabdullaahi Colombo ayaa aqriya geeraarkayga berigaas marka dadkii ay ugu kasaynin laakiin maantaas horta wax bilaabina wax alif waa tahay hadda waaba ka sii dartaba hadda waaba ka sii droog leeyahay musilla hadda laga yaabay marka waxa waaye waxa ugu dambeeyo wax badan alifay laakiin hadda kan ugu dambeeyo hadda aan soo qabanayo waxa waa geeraar leeyahay alif waya haye marka maadaama qof shaqaale ah runtii waqtigan aad ciriiri uu yahay wadamada reer galbeedka qofka jooga wuu fahmi karaa shaqaalana aan ahay hooyana aan ahay xaasna aan ahay maalinba ma aragtay xarafan sameeyaa maanan dhamaynin laakiin hadda ilaa iyo dhowr xarafan sameeyay aan wax kaaga sheegi karaa waxaan iri alif waya xarafka a aan soo qaatay waxaan iri abaal ma gaboobo irdhowna ma raago inaad ummad layso islaamnimo maaha udgoonow rasuulna sidaa ma areeran ilaahay cadiima halkaana ma aadin xarafka ba waxaan iri beledkoo aad gubtaa bulshadoo aad liqdaa ama baabax ka yeesho burji kuu kordhin mayso buura kaa dhigi mayso sandana kuu badin mayso ha banaysan ba-ayga haybiraynin aboowe xarafka caynka ama waxaan iri cabaadka baxaaya cariiriga muuqda sidaan curadkaaga cadkiisii ka goostay inaad i cirdayso naftayda cisaynin soo caaqnimo maaha انت حبض ضدك سلطان الله هدلايا انا كلا سوعينا حرف كدا waxaan iri darajaadan helaynin ama daa'im ku siinin si kasto dalabta dadabay kugu dhaaf hadaad xoog ku daydo ku dakay istiraah wariga dan qiimayst ama inaad idishood hilibkay dubataa danta kugu jirtaa marka allah ay soo aroorey laakiin waa wada geerar cajiib Allah fahamtay marka hada hatta xarafayso isugu xigan uma alifay kolba mid kan soo qaban karo ayaan soo qabtaa ogtahay waxaan iri hadaad guul moodo inaad ugumaado waa xarafka ga amaad garan weydo inaad gargaarto garaad xumadaada ma waadan garwaaqsan xarafka xa waxaan iri xishood lama iibsho baac ma aha xishoodku waa sax xakaarna ma raago dhib kasta maalin buu dhamaanaya waa sax xisaabtanka ee baxraasha dambeeto sidaad iila xaashay markii la xasuusto xaashidaad lagu siiyo jawaab xulidaada xageed bal u raadin bari markii xalaalaha la isdhigo qabwaha la isdhigo maanta hadaad magac dawladeed dad ku disho ama magac maxay ahatoon kooxo adigu aad sameysado dad ku disho barintu marka qabriga lagu dhigo kaliga ha tahay kii aad ii geysatay anoo walaalka ah oo islaam shahaadanaya waa lagu weydiinaa waa faham ilaahay quraankiisu kuma qoran qodadka la iska dilo hadhoona wala is dhaafaa bilaash dad badan laakiin waxay isleeyihiin maadaama dad badan oo wax dilaya ama maanta ururada siyaasadeed Soomaaliya ka jira ay badan yihiin أمين هي أولى جيدا ضد إسليين ما وحنا أولى جيدا هذا بشيء وحنا أولى جيدا هو وحنا لك العدياف يعني عد الله عدي حبض أي أيده ردي أما أباب الشيء ضد كل شيء أما قف كل ما تقولنا أولى جيدا كلام يجي على ضد وقت هاي أمين مركا ما دام ولا لا هنكش وما أنت هل بال ومريو محا حقو محا كمان دونتان مركا دمبي هرت واحد بدنا نسوقايه هاي ما دامت أنا نفتر كيجا رنتي سان مودا من نقنن أنا اسم لهين مريع العدد سارته ضدك دلك سان كحومة ترى هذا أنت صوت تاجريالي هلي سام إسلام كهذا هو هذا إيش شيء هو ده وحكي لي مجلنا صندنا وحكي لك دوني معي إن ودك أنا حكي بدلي كرنا أيان هذا الرمي سنة رنتي هرنا الرمي سنة لكن رجل ده وإسكا يراد هذا أرتمرك ورئيس لعبد أو الرئيس بشانس بلا نور دمعتي كو waxaan rabaa horta inaan xuso bishaas inta qof oo dhimato inkastoona wada hayna maalo dadku waa dhintaan laakiin koo waxa waaye annaga bisha koodeedan ku dhawaaqay bisha afarteeda afar haweena ayaa qarax lagu dilay oo muqdisho nadaafada ka qayb qaadanay masaakiina ilmahooda u xoogsanay in kalena waa dhaawacmeen oo isbitaal ay yaalaan maalintaas maalinteedii oo sanadka hor taasoo kale lagu dilay laakiin marka ololahan ka hadlay intuu bilowday بقول قف كبرا هذا التضباط كي هذا لما هذا أنا مقدش كدمت كدمتين كدمتين وأنت أولا لها بلودين ها أنت أولا لها بلودين هي مركب بالكورن أنت أولا لا وحده ودين لهين والحسابين مركب هذا
ugu yaraan hadda ma aha wixii xisaabtoo gawa ma laakiin ugu yaraan marka 104 qof ama 110 qof ee Soomaaliyeed oo magaca Soomaali sidata marka saas aan ku weynay maxaa u malaynaysaa maalin walba oo kale inta aan la xisaabaynin oo aan la ogeyn ayo horta waxaan rabaa aan magaca dadka howlwadeenada ololaha hankasha ku hadlaaya inaa horta tacsi u diro dadkii laga dhintay in wax kaloo hadda aan iraaman garanayo dadkii Allah u naxariisto inta dhimatay war intan wax dishana dilka naga daaya oo qofka qori wato oo rabto inaad iska celi hadaad xoog qabto laakiin gabar masaakiin oo jid xaaqaysa ama maxay ahatoon reer masaakiin oo gurigooda ku jiro sarirtooda jiifa ama aan bahaysan basarre jiiftaan iyagaba baga iyago dhulka baarka gacanta ku haayo gaajoon dhintay waxaan ka xumahay intaas oo dilkaas waa ka xumahay in tacsina waa u diraaya ilaahay ha u naxariisto ilaahay dalka ka joojiyo waa tahay maxaa ololahan gasho maxaafiis baad leedihiin ma caalamka maxaafiis baad ku leedihiin ma mise waa un adiga un baa wax iska wada horta waxa waaye xafiis ma lihin annaga waxaana aaminsanahay ma u baahnin waxa waaye xasan dadka Soomaalida waxaan rabaa ololahan inay tusaale ka dhigtaan inay ogaadaan in wax la qaban karo iyadoo tigid diyaaradeed la goosan kumaan kun lagu qarash garaynin waa sax iyadoo kombiyuutarro iyo xafiisyo badan la furan inay ogaadaan in wax la qaban karo ayaa horta rabnaa annaga xafiis ma lihin xafiis gaara ololaha hankasha ku dhigantaana ma yeelanayn qof walba oo Soomaaliya gurigiisa oo shaah noo kari kara aan shaah ku karsanaynaa ku cabaynaa hawsha ku qaban karna ku qabanaynaa diyaaradana ma raacayna nagoon diyaaraday waxba raacin ayaa wax alla iyo wixii isgaarsiinta iyo teknolojiyada casriga ka faa'iideysanayna taasaan ku xiriirina ilaa hadda taasaan ku xiriirna waa fahmay marka adigu hadda London baad joogtay ololahan olola runtii deel uma muuqdo sababta waxay tahay waa wax ka go'an sida sheegaysid marka ma halkan baad ka wadaysaa mise soo kaama baahna inaad adiga laftirkaagu meelo kala duwan tagto wadanka ilaa halkan ma aha wax laga rabo meesha wax laga rabo runtii un dhiig laga joojiyo dhibaatada la joojiyo dadka gumaadkooda la joojiyo waa wadankii Soomaaliya marka ma ku tala jirtaa inaad halkaa tagto waa ku tala jiraa goorayta ma garanayo waa ku tala jiraa laakiin goorayta ma garanayo waa in wadankayga Soomaaliya ka u barooranayo waa mogtahay oo inay maryaha cad u sito marka halkan aniga shalana xabada kama soo cararna dadka xabada ka soo carar kuma jiro dadku say u ogyihiin ma hadda qof shaqo halkan loo keena ahay ani xabad kama soo cararin waa ku noolaa kaaraan xaafada Argentina deganaa marka xilligaas nabad bay ahayd baa leedahay waa marka waxa waaye xilliga ka xumaada door dalkayga waay mid kale aan dalashada Soomaali waa isma bedelin wadankan wali Soomaaliyan ku jooga sharciga Soomaali waay nationality Soomaali waay ina bedeshan marka taasri waxaa haystaa oo xalanay ki oo munishibiya san ka galiya magto marka ilaha what is your nationality am hala yes here I'm Somali marka aniga wadankayga wax lagu cunaayo ma aha wadankayga marka aan arkayno habboon marka aad 10 sano joogaa 10 sano joogtaa Soomaali 10 sano joogaa wadankan marka waa runta marka maxaa ma ada iska go'aansaday inaad dhalashada Soomaaliya iska haysato أنا أسكت عن صدها شرعي ودنك وحي قرايا هذا ودنك شن سنة جوكتو أو شن تاع سنة أنا أتلاقي هاي شرعي قد جناشها أنا قاعدته هذا أفر سنة جوكتو أنا إن دجناش قاعد مرك أفر سنة مركان جو دجناش قاعد شن سنة مركان جو وحال eligible قلنا قضي أما والله أقول أنا ضل شقات لكن ما أنا قاعدة جو الودنك وقتها إن آمنوا يدد بدن باوحي سويتين كران أنت بدن دتك مدحتنمي وعريان siyaasad bay u cararayaan waxaa la leeyahay dad badan oo halkan ka ordi jiray oo ka qayrin jiray ayaa maanta dawladii galay marka arma qorshahan ama dhinacaas laga haya madaxnimo aniga waxaa iigu filan tan gurigeyga ka haayo horta ma fahamtay waayo waxaa madax ka ahay 7 caruur ah yaa iyo gurigeyga intaas horta ugu filan waa gartay waxa kale madaxnimo iigu filan aniga dadkayga dilka laga daayo marka haddaan madaxnimo rabo anoo meelaha inta garabaati xirtay meelaha cararaya la arki doona marka ololahan gasho laakiin ma soo urur ma noqon karo ani urur ma rabo inaan ka dhigo kolay
marka waa un qorsho dadkaas la rabay in ururada waxaan isku kaaya darayba kamid yihiinba ma fahamtay midka media